الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. waxaan kusoo guda jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa. darsigeen wuxuu ka bilaabanaa aayadda 67 ee min suurati albaqara. waxaana kusoo guda jirnay weliba qisadii reer bani israa'iil iyo nebi muuse calayhi salaatu wasalaam dhex maraysay. ilaahay wuxuu yidhi jala jalaaluhu: waid qaala muusaa wadkuruu xusuusta nebi yacquub caruurtiisiiyow, id waqti xusuusta qaala muusaa nebi muuse uu yidhi liqowmihi tolkiisa uu ku yidhi ama waxaa kaloo dhigi kartaa wadkur sheeg nebiga suubanow, id waqti sheeg qaala muusaa nebi muuse uu yidhi liqowmihi tolkiisa uu ku yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum tolkeygiyow reer bani israa'iilow ilaahay wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan neef lo ah. qaaluu waxay yidhahdeen reer bani israa'iil atattakidunaa ma waxaad naga dhiganaysaa muusow huswan ay husu-an mid nagu jeesjeeso miyaad naga dhiganaysaa, ama atattakidunaa ma waxaad naga dhiganaysaa husuwan jeesjees. qaala wuxuu yidhi nebi muuse acuudu billaah ilaahaan ka magan galay an akuuna inaan ka mid noqdo min aljaahiliina wax magaratada oo nebi ilaahan ahaye sidee maan idinku jeesjeesaya waa yaabe. ilahi wuxuu yidhi jala jalaaluhu: qaaluu waxay yidhaahdeen nebi yacquub caruurtiisa waa reer bani israa'iile udcu lanaa muusow noo tuug rabbaka rabbigaa noo tuug yubayin lanaa ha noo caddeeye maa muxuu yahay hiya baqarada ama maa hiya maxay tahay baqarada maxay tahay hiya baqarada neefka looda aan qalaynaaye muxuu yahay. qaala wuxuu yidhi nebi muuse innahu rabbigay yaquulu wuxuu leeyahay inahaa neefkaasi baqaratun waa neef lo ah, baqaradaasoo laa faaridun mid duq ah aanan ahayn walaa bikrun qaalin yarna aanan ahayn, cawaanun waa mid u dhaxaysa bayna daalika labadaas da la soo sheegay duqnimada iyo da-yaraanta labadaas da udhexaysa waa mid dhexdhexaad ah. ee fafcaluu qoomkeygiyo sameeya maa tu'maruuna waxa laydin amraayo oo neefkaas lo inaad qashaan ah sameeya. qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil udcu lanaa noo tuug muusow rabbaka rabbigaa noo tuug yubayin lanaa ha noo caddeeye maa muxuu yahay lownuhaa neefka lo-da ah midabkeedu muxuu yahay, maa muxuu yahay lownuhaa baqarada midabkeedii. qaala wuxuu yidhi nebi muuse innahu rabbigay yaquulu wuxuu leeyahay inahaa neefkaasi baqaratun waa neef lo ah, baqaradaasoo safraa jaallo ah ama boor leh midabkeedi uu boor leeyahay, baqaradaasoo faaqicun uu aad u adagyaho tiq yahay lownuhaa midabkeedii, baqaradaasoo tasuru farxad gelinayso annaadiriina dadka fiirinayo eegaayo. qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil udcu lanaa muusoo noo tuug rabbaka rabbigaa noo tuug yubayin lanaa ha noo caddeeye maa waa maxay hiya baqarada, maxaa yeelay ina albaqara lo-yaalkii tashaabaha calaynaa waa isu keenyo ekaaday, wa inaa annagana inshaa allahu ilaahay hadduu doono lamuhtaduuna kuwa hanuunayaan nahay oo lo-da inay qalaan ku hanuuni doonee. qaala wuxuu yidhi nebi muuse dulqaadkiisii bal u fiirso innahu rabbigay yaquulu wuxuu leeyahay inahaa baqaradu baqaratun waa neef lo ah, baqaradaasoo laa daluulun mid la tababaray aanan ahayn, daluuladaasoo tuthiiru larda arlada mid qodana aanan ahayn, tuthiiru larda arlada qoda, walaa tasqii mid waraabisana aan ahayn alxartha beerta, musallamatun
ومد كنبت قشي بقرadaas oo musallamatun ka nabad gashay min alcuyuubi ceebo idil baqaradaas oo laashiyata wax bar ah fiiha uusan ku sugnayn qaaluu waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil al'aana haddeer yaad ji'ta la timid muusow bilxaqi xaq yaad la timid fadabaxuuhaa isla markaasay ayay qaleen fadabaxuuhaa lo-dii markaasay qaleen walxaal ayayna gowraceen maa kaaduu waqtigaas ka hor aysan ku siganinba yafcaluuna inay qalayaan. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga maraa reer bani israa'iil dhibkoodii. wuxuu yidhi ilaahay aayadda 67 waid qaala muusa wadkur sheeg nebiga suubanow id waqti qaala muusa nebi muuse uu yidhi liqowmihi tolkiis uu ku yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu baqarata neeflo inaad gowracdaan. qisadan isagoo nusuulkeedu waxay ahayd sida moxamed ibnu siriin uu ka warinayo cubaydata assalmaani in nin reer bani israa'iil ka mid ahaa oo madhalays ah oo laa yuuladu lahu aan wax caruur ah aan loo dhalin. ninkaas wuxuu lahaa maal fara badan ayuu lahaa, yacni madhalaysna waa uu ahaa. markaasaa wiil waxaa jiray walaalkiisi dhalay oo adeer u ahaa, dhaxal sugihiina ahaa. markaasaa wiilkii yaraa wuxuu dilay adeerkii ayuu dilay xili habeen ah. markaasuu intuu habeennimo meydkii adeerkiisa qaaday ayuu wuxuu kusoo tuuray yacni guri oo yacni dadka magaalada degan albaab wuxuu kusoo tuuray albaabada dadka xaafadda degan ah, dariska albaabadoodu meydkii kusoo tuuray adeerkiisi. markuu waa bariistayna canugu intuu iswaalay ayuu seeftii siibtay. markaasuu yidhi adeerkii wixii dilaa laii sheego, ciddan gurigoodan ku arkay adeerkii meydkiisi wallaahi haddan yacni magtiisa laysiin wixii dhac waa la arki doonaa. ka dambe iyagoo isku dhici rabo hubka isku qaateen, markaas qolada nabadoonada ahaa indhargaradka ahaa yaa waxay yidhaahdeen calaama yaqtulu bacdukum bacdan wa haadaa rasuulullaahi fiikum. war muxuu yahay qaarkiin qaarka kale sababta isku dilaysaan maxay tahay iyadoo rasuulka ilaahay oo muuse ana uu idin dhex joogo. markaasay nebi muuse u yimaadeen, arrinkii u sheegeen ninaa la dilay, yani wiilkii dilay wiilkii yani adeerku ahaana yani iyo qabiilka kale way isku dhici rabaan. markaasa ilaahay nebi muuse tuugay. ilaahay wuxuu amray inay neef loo qalaan. neefkaas loo hadday qalaanna bis hilibkiisi gabal ka mid ah hilibkiisi inay meyd ka dhintay ku dhuftaan, kadib isagaa soo noolaanayo. qofkii dilayna way sheegaa. meeshaan waa qisadii labaad. suuraddan 5 qisaa ku jirto oo dad dhintay adduunka dhexdiisa ilaahay soo nooleeyay. qisada koowaad daraada waxaan kusoo marnay cashirkii hore xataa nara laha jaaratan, meesha ay dhahayeen meeshaan kusoo marnay. qisadan waa qisadii labaad. lo-dii marka qaalaa kala yiri hilibkeeda ku dhufta ma samaynin, adayga samee lo-da noocee waay midabkee waay iyo war aan loo jooginay galeen. markay arrinta adkeeyeen ilaahayna waa ku adkeeyey. marka awal hal lo-da iska soo qabtaan way ka ansixi lahayd, laakiin ayagaa isku adkeeyey, waa lagu adkeeyey. marka lo aan la helaynin yaa loo diray. si ay u socdeen marka lo-dii way waayeen midabka loo diray lo yacni midab boor loo jaalo camal leh, boor leh, isla markaasna aanan duq ahayn, lo yacni weli aanan curan oo aan bikra aanan ahayn oo yacni qaaliyana ahayn, xadxaad ah. waa la soo waayey. si u wareegayeen waxay ka soo heleen hal nin oo xil iyo xoolabo hashaas lo qabo. markaas isagana wuxuu yidhi wallaahi inaanan loodan idinka gadaynin ilaa maqaarkeeda muggiisi oo dahaba inaad siisaan maahane. sidii yeeleen markii dambe markay waayeen ninkii waxay siiyeen maqaarkeeda oo buuxo oo dahab ayay ku badasheen lo oo wax yar joogo. ilaah ku imtixaan. marka maalinkaas canugii ka dambe oo soo noolaaday yaa ku diliyaa la yidhi wiilkan adeerkaayo kana idiliyu yidhi, wuuna iska dhintay. marka wiilkii adeerka waa wiilkii dhaxalka lama siinin. halkaasaa ilaahay ku fashiliyey. qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi subxaanahu watacaala qaaluu waxay yidhahdeen marka atattakiduna ma waxaad naga dhiganaysaa muusow huzuwan mid nagu jeesjeesaayo, ama huzuwan masdarka isaga laqbeeyo jeesjees miyaad naga dhiganaysaa. qaala wuxuu yidhi acuudu billaahi ilaahan ka magan galay yacni an akuuna inaan ka mid noqdo min aljaahiliin wax magaratada. qof aan waxba garanayn aan dadka ku jeesjeeso, anna wax magarad inaan noqdo allaan ka magan galay. markaasu wuxuu yidhi qaaluu waxay yidhahdeen marka udcu lanaa marka rabbigaan noo tuug, udcu lanaa rabbaka rabbigaan noo tuug oo noo bari, yubayin lanaa hanoo caddeeye maa waa maxay hiya neefka looda ah. qaala wuxuu yidhi nabi muuse inahu rabbigay yaquulu wuxuu leeyahay inahaa neefka baqaratun waa neef lo ah, neefkaas loo laa faaridun
mid duqaanan ahayn oo gabowday walaa bikrun qaalin yar aan weli curanna aanan ahayn cawaanun waa mid u dhaxayso bayna daalika sini lmadkuur da'daas lasoo sheegay ayay u dhexaysaa duqna ma ahan mid yarnama waa mid dhexdhexaad fafcaluu qoomkeygiyo sameeya maa tu'maruuna waxaan laydin amrayo qaata oo warka badan iska joojiya hadal badnida iyo warjeclida iska daayo oo war sameeya waxaan laydin amraya neefka loo qala qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka muuse rabbigaa noo tug edabdaradoodi xitaa rabbanaa dhihi maayaan rabbigaa ay leeyihin yubayin lanaa noo caddeeyey waa maxay lownu waa lo'da midabkeedii qaala wuxuu yidhi nebi muuse inahu rabbigay yaquulu wuxuu leeyahay inahaa neefkaasi baqaratu waa neef lo ah neefkaas loo safraau yacni boor mid boor leh ah oo yacni jaallo ah boorka waxaa la yidhahdaa safraa waxaa la yidhahdaa qoraxda markay sii dhacayso guduudka cirka ku jiro oo guduudka iyo jaalaha iyo boorboorka isku dhex jiro kaasaa la yidhahda neef le oo midabkaas quruxda badan leo boorboor iyo jaalo ah waaye neefkaas loo faaqicun midabkiisi aad uu adag yahay faaqic waa midab tiq ah yani boor tiq ah yani safraa yani boor leh faaqicun haddana aad uu adag yahay midabkiisa faaqicun uu aad u adag yahay lownaha midabkiisi yani midab waxaa la rabaa boor ama jaalo oo tiq ah fahmaysaa neefkaas loo tasuru ay farxad gelinayso annaadiriina dadka eegayo fiirinayo qaaluu waxay yidhaahdeen udcu lanaa rabbaka rabbigaa noo tug muusow yubayin lanaa hanoo caddeeye maa waa maxay hiya baqarada maxaa yeele ina albaqara loyaalki albaqar waa baqaratun aa la jamciyey alaa la geliyey marka ismu jinsiga saas waay oo jamciga markii mufradka oo yahay baqaratun waay jamcan alaa la geliyaa bis ta'dan waa laga gooyaa ina albaqara loyaalkii dhe marka tashaabaha calayna waa isu kaanya ekaaday fahmaysaa waa inaa anagana lamuhtaduuna kuwii hanuunayo toosayaan nahay insha allah hadduu ilaahay doono looda waan haleeri doonaa qaala wuxuu yidhi nabi muuse inahu rabbigay yaquulu wuxuu leeyahay inahaa neefkaasi baqaratun waa neef lo ah neefkaas loo laa daluulun mid la tababaray aan ahayn mid la tababaray daluuladaas tuthiru larda dhulka qodo mid la tababaro beeraha qoday lo waxaa jirto beerta faagtoo qodo kuwaas lama rabo yiri walaa tasqi lxartha mid beeraha waraabisaa jirto oo biyaha lagu soo daldal ceelka biyaha lagu soo jiido midaasna lama rabo neefkaas loo musallamatun mid laga nabadgeliya musallamatun mid laga nabadgeliyey ah min alcuyuubi ceeb oo dhan mid laga nabadgeliyey ah neefkaas loo laashiyata wax bar ah fiiha uusan ku dhex jirin bar yani neef waxaa la rabaa midab jaalla ama boor tiq ah oo bar waxaa la yidhahdaa neefka hadduu cad yahay bar madow dhibic madow haddii ku jirto baraa la yidhahdaa hadduu madow yahay dhibic cad ku jirtana baraa la yidhahda wax bar aysan ku jirin qaaluu waxay yidhahdeen alaana hadda aad ji'ta la timid bilxaqi xaq hadda xaqi la timid kulaha awal micnaa baadil muu ku socday edabdaradood bal fiiri fadabaxu waa markaasi neefkii loo qaaleen walxal ayay gowraceen maakaadu waqtigaas ka hor aysan ku siganbo yafcaluuna inay sameeyaan wallahu aclam